بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad walaalayaal, waxaan sameysanaynaa maanta biskud. halkan waxaa ku jira waa subda ama butter, waa 200 gram. marka wax yar ayaan ka isticmaalay, banaanka ayaan soo dhigay, wuxuu noqday xoogaa dhalaal insha Allah. halkan waxaa ku jira waa koob sokor ah oo soo shiiday. marka koobkan koob aad u weyn maaha, koobka weyn waa ka yar yahay oo lagu cabo casiiraadka ama cabitaanka. sokortii waxaan isku qasanayaa iyo subdadii ama butterkii insha Allah. soo dhawaada, isdhex gelinayaa. si fiican isku dhex gasho waayo insha Allah. marka hore sokorta iyo butterka ama subdada si fiican isu dhex geli. ukun ayaan ku darsanayaa insha Allah. hal xabo ukun ayaan ku darsaday, 2 xabo ukun ayaan ku darsanayaa. marka biskudkan masha Allah, biskud aad u macaan waaye insha Allah, ka heli doontaan. waxba makiinadii waxa kuma sameynay, gacanteeda ayaan ku sameysanayaa insha Allah. marka isu dhawaada, si fiican ayaan isu dhex gelinayaa. sokorta waa soo shiiday, kulli waad fahanteen. ka hadaba isku dhex galay. waxaan ku darsanayaa waa 2 qaado oo saliid ah. marka saliidda waxay ku fiican tahay subdada iyo saliidda marka isku dartid ama butterka, waxay ku noqonaysaa subdadaas yani subdooyinka qafiif ayay noqonaysaa, yani qafiif ayuu noqonayaa bisudkii. markaad cunayso kale wuxuu noqonayaa wax afka ku jijibaya camal ayuu ku noqonayaa. marka la isku daro aad ayuu fiican. waxaan ku daray in yar oo milix oo meel dheer oo far iyo suul in yar oo ah vanilya ayaan ku daray. burka marka uu qiyaasanayaa ma ahan in aan ku dhahayo waa intaas, qiyaas waaye yani burka halkaas uu yaala. marka burka intuu iiga noqdo ayaan ku darsanayaa insha Allah. fiidiyowgan aad u dheeraaday, wali waa soo googooy. waxaan ku darsaday 1 qaado oo wax yar ka dhameeyay oo ah baking powder ayaan ku darsaday hadda insha Allah. burka ayaan ku darsanaa, waa burka intuu ii qaato. qiyaas idima dhahayo, adiga gacantaada ku qiyaaso, kulli qof walba biskud way samaysataa. marka masha Allah, maadaama aan samaysanaa waxaan dhahay walaalahan insha Allah la qaybso. marka walaa biskudkan masha Allah cajiib. waxaan ku dhahay afka wuu ku burburaya, afka markii la geliyo wuxuu noqonayaa biskudka hadda maanta aan samaystay masha Allah. cungeedka la dhahayo kala mataqaanaa, afka ku burburaya wuu ku dhamaanaya. afka hadda galis afka wuu ku burburaa intaad ilkaha geni jileeciisa masha Allah iyo macaanka. marka biskudka saliidda iyo sokorta, saliidda iyo subagga marka la isku dhex daro masha Allah waa fiican wallahi. isku qasay ilaa intii aan ka helo burkii aan rabay insha Allah. fiidiyowga aad u dheer yahay laakiin insha Allah laga faa'iideysto oo la dhamaystirto insha Allah. burka yarka waxaa meeshaan ka qaaday istiraashada iyo wali waatii alaabta aan ku masaxanayo nadiif. bur yar ku kor dhacay waa ka qaatay burkaan ku darsaday. marka waxba ma ahan, istiraashada nadiif waatii alaabta aan ku masaxanayo. burka waa kala goosanaya, 2 cad oo yar ayaan ka qaadanayaa insha Allah. marka waxaan ku sameysanaynaa waa isla arkaynaa biidhnillaahi kariim. waxaan ku darsanayaa cacao butter ayaan kan ku darsanayaa, ka kalena wax kale ayaan ku darsanayaa. kaasna siisa ayaan daynayaa. 3 nooc ayaan ka dhiganayaa insha Allah. waa kana saan ayaa ka dhigay. si fiican isu dhexgeli cacao-ga iyo burka, si
fiican ha isu dhex galaan. Kan ayaan soo qaatay. waxaan yar oon ku darsanaa waa bahasha oo lagu darsado bariiska iyo raashinka markii la karsanayo lagu darsado waa in yar ayaan ka qaata. ay shay oo loon oo kalar ah ayaad ku darsan kartaa ood haysato, wax dhib lama ahan. ay kalarka haysato ayaa ku darsan kartaa. hadda bur yar ayaan soo qaatay insha Allah. saas ayaan waxaa ugu wareejinayaa gacanta si yar oo tartiib ah oo burkiina si kala kaaga noqon. si yar oo tartiib ah ayaa gacanta lee ku wareejinaysaa. gacanta ayaa haddana ku fidinaa si uu igu noqdo wax yar oo buur ah insha Allah. haddaad doonto intaad kala fidsato asagoo buur ah waa goosan kartaa, laakiin sidan ayaan hadda fiirinaya insha Allah. wayna fiicantaa masha Allah, laakiin saasna waad samayn kartaa, wax dhib lama ahan insha Allah. soo dhawaada. tan waxaa waa tii oo bataatiskii lagu kala googoosanaya waaye. bataatiska lagu jarjartaa, waxyaabo kasta lagu jartaa. marka waa taas ayaan ku googoynaya insha Allah. saas geeska ayaa u jaranaysaa, gees ayaa ka dhiganaysaa insha Allah. geesaas ayaan iska jaray. saxankan ayaan soo qaatay oo furka la gelin lahaa. waan kusoo safayaa. saliid ayaan soo mariyey ee saxanka. saliid mari laasun si uusa kaaga dhigdhigi. sidoo kale haddana cadkii kale ayaan soo qaatay. haddaad doonto cad buuran waa ka dhigi kartaa waxoogaa yacni xajmi leh. saas ayaa marka hore gacanta ku leedahay in yar un xoog badnay ee saas leedahay. markaas haddana gacantaada akas yar ku kala bixinaysa. in yar ayaad gacantaada ku kala bixinaysaa insha Allah. waxba looma baahna maanta kala bixis kale. sidaas yaroo tartiib taale aad kala baxsanaysa waa inuu kuu sameeyo isla ka egyahay insha Allah. kolley waa gacan bili aadan oo wax islama ekayn karno. marka waa jarjaranayaa sidoo kale nafsu shay sidoo kale ayaa u jarjaranayaa insha Allah. adigu intaad doonto la ega daarto weynayso. haddaad rabto xajmiga u weynayso oo micnaha culays ka dhigo adigay ku jirtaa. sidii lee waaye haddana insha Allah, laakiin xoogaa waxaa moodaa inay xajmi yar u yaalo markaan. laakiin waa isla sidii uun. marka waxaan soo qaatay shukulaatadii. in yaroo shukulaato cad yariis oo shukulaato ah. geedkan yarka naqshado yaryar ayuu leeyahay. naqshadaas ayaa ku dhejinayaa si oo naqshadda si ugu yeesho caaga yariiska. naqshado yaryariisa iyo kuwa aad u sii yar iyo kuwa in yar waa yaryar iyaga dhan, laakiin kuwa kan ka sii yaryar ku jira. korka ayaan ka saarayaa biscuitkan soo gogoy ayaan korka oo naqshad uga dhigaya korka ka saaraya insha Allah. marba naqshad ayaan saaraya caagan yariiska masha Allah. naqshad yar oo qurux badan ayuu ku yeelaya. cad kale ayaan isbeel dhinac kale ayaan haddana saaraya. shaacad kale soo qaatay dhinac kale ayaan saaraya insha Allah. wuxuu ku soo baxay quruxan ku dhahay macaankiisana iyo jileeca والله هو أبغي مركا كنا سيديو كله وكي كدود كا ينسوق عطون كل درسدين عن كلر كأمرية
ayaan haddana cadcadkii intii oo kale haddana kasoo qaadanaya si ayaan ugu safaaya. midna waxaan ka dhigayaa bunigaan saaraya, midna waxaan saarayaa guduudkaas insha allah, loonkaas oo guduudka ah ama kalarka ah ayaan saaraya insha allah. saas ayaan kusoo dhamaystirayaa bidnillaahi kariim. kalar iyo qurux badan waaye. marka hadda waxaan ku tusaysaa haddaad haysan caagaas saasoo kale intoo kale soo qaadanaysaa, hadda goosanaya camal midida le uu samaysanaysaa, kal aad ku jexjeexaysaa, ku sarsaraysaa yacni khalaas kalar yar ayuu ku yeelanaya. waa kaasa kalar yar ayuu ku yeelanaya, korkaad ka saaranaysaa. waxba haddaad caag haysan uma baahnid. haddaad caag haysan uma baahnid, saas ayaad leedahay. xabadan kale ayaa haddana intusaayo oo guduudka ahayd iyadana sidoo kale u sarsaraya insha allah. haddaad haysan caagaas yariiska saasaa leedahay, haddana saasaa leedahay, saasaa ugu sarsaraysaa insha allah. si yaroo adiga oo markaas adiga sida astiraawa kula qurxoon tahay ayaad gacantaada ugu qurxsanaysaa, korkaa ka saaranaysaa marka jag maasha allah. saasuu kuu noqonayaa. markuu bislaadana waa arki doontiin insha allah si ku soo baxo. hadda marka nooc kale ayaan samaysanaya insha allah. 3 nooc ayaan ka dhigayaa. nooc waa kaasa, noocaana waa kana. saana midida marka hore ugu sarsartay, saasaan ugu sarsarayaa meel kasta oo saa ka mid ah. marka hore dheer ayaad ugu sarsaraysaa, maaha inaad kala goynayso yacni si yaroo tartiib ah. waxaan soo qaatay shukulaatadii, kii aan ku darsaday biskudka shukulaatada aan ku darsaday kaakowga yacni aan ku darsaday ayaan soo qaatay. waa dheeraynaya si yar oo dhuuban, cad yar oo dheer ayaa cad yar soo qaadanaysaa. waxaad ku fidinaysaa gacantaada. marka kaakowga waa ogta isma qabsanayo marka qaarkood, haddaa istiraaxoogaa waa kala baxbaxayaa. in yar oo ah in caano ku dhex qaso si uu si fiican isugu kaa dhex galo, uusa kaa kala furfuran. qallayna wuu leeyahay, aad u qallayyahay. marka saliidda waxaan ugu daray inta badanba subtaasna maasha allah khafiifay noqonee. ha ahaatee waxa waaye kaakowgu qallaylkiisa badan hadduusa markaas dufan badan uusan lahayn. marka saasaan u kala bixiyay, saasaan u dhuubay. waxaan kusoo wareejinayaa cadka yarkaa oo burka ahaan oo aan kuusay ayaan kusoo wareejiyey kaakowgii ama shukulaatadii oo burka aan kusoo daray kaakowgii ayaan kusoo wareejiyey maasha allah. saas ayuu marka noqonayaa. aad iyo aad ayay u qurux badan tahay, way cajabiyey aniga. sidii oo kale ayaa midida ugu sarsaraysaa haddana maxaa isaga oo meeshiisa buniga ah kulligood midida ku sarsar. shagliga kula qurux badan halkaas ayaan saartay. waxaan samaysanayaa marka waxaan saaranaya sidoo kale aan wax kor ka saaranaya shukulaatan soo qaatay, kaakowgii gastay ayaan soo qaatay burka ahaa. cad yariisa waaye isaga waxaa la saaray sida kii oo kale maahan, in yar oo noqda yaraa la saaraa. meel aad u yar ayuu leeyahay kan. meesha ayaan waxaan uga dhigayaa naqshad ayuu u yeelayaa. naqshada ayaan kasoo fuqsanayaa, saas ayaan korka uga saaraya. marka insha allah si qurux ku noqonaya isagana quruxu kusoo baxaya. sidii oo kale haddana kuus yar ayaa soo qaadanaysa inta buskudka marka la kuusayo camal qiyaastiisa ah. midida ayaa ku sarsaraysaa dhexda geesaha dhan ayaa ka sarsaraysaa insha allah. waxaan soo qaadanayaa haddana kii kale oo ahaa guduudka ayaan sidii oo kale u kala bixinaya insha allah. waan kusoo wareejinaya isagana. fiidiyowga aad iyo aad u dheeraaday marka waa jarjaray insha allah. waxyaabo badan ayaan ka bixiyey, kuwaan iyo way badnaayeen waa ka saarsaaray xoogaa, way aad u dheeraadeen. nusoo saac uu sii dhaafay. markaasaan ugu soo wareejiyey kana, saasaan ugu soo wareejiyey. bunigiina waa kusoo wareejiyey. kii kaloo ahaa aan ku daray loonka oo isna kalarka kale waa kana isna sidii u soo wareejiyey. marka mar walbaba midida ku sarsar si shakli qurxoon kuugu soo baxo. kolley waa fahmi karnaa maasha allah. biskudna waa wada naqaanaa, dad iga badiyana way buuxaan maasha allah. ilaahay gacanteeda u dhaafo ana u taysto.
marka in yar ayaan soo qaatay meesha yar naqshada yariistaan ayaan saaraya in yar ayaan soo qaatay haddana waxaan rabaa inaan loonkan kale aan saarto midka bunniga aan kusoo wareejiyay bunni ayaan saarayaa midka guduudka aan kusoo wareejiyana guduud ayaan saarayaa ma fahanteen marka waa kaasaas ugu soo baxay kaasna maasha allah mar walbaba labadooda midida ku sarsar kana isagana sidoo kale ayuu noqon doonaa insha allah midkan kale ayaa markaa samaysanaya kii saddexaad ayaan samaysanaynaa saddex naqshad ayaan samaysanaynaa burka cadka ayaan kuus ka soo qaaday yariisa aad u yar in yar oo aad u yar ayaa soo qaadanaysaa kii buniga ana waa ka soo qaatay guduudkiina waa ka soo qaatay haddana waxaan soo qaadanaya bunigii marka waa safaysaa adiga waxaa ka dhiganaysaa laba guduud ah iyo laba cadaan iyo laba bunni ah marka saf ayaad gelinaysaa maaha inaa isku xijinaysaa waa inay isku xigaan naqshada isku xiga inay noqdaan cadaanka ee hormariyo ujeedaan haddana waxaan ku xijiyay guduudkii marka xoogaana kor u taag markaad samayso oo samaynayso saas u taag wax taagan oo kale ka dhig wax fadhiyo oo ballaaran ha ka dhigin guduudkii oo cadaankii oo horey guduudkii ku xiga bunnigiyaa ku xiga waxaa ku xiga haddana cadaankii haddana waxaan ku xijinayaa guduudkii ayaan ku xijinayaa haddana bunnigii ayaan ku xijinayaa 6 xabo ayaan ka dhigayaa laba yacni si ay hadhow kalarkooda kalar qurux badan u noqdo insha allah kiiba 2 xabo ayaa ka dhiganaysaa saasa marka isku dhaweynaysa isku soo xir isku soo dhaweey saas marka isku soo dhaweyso xoogaa gacantaada isku soo dhaweey adiga iyaga is dhex galayaan maasha allah tabaarakallah quruxdiisa waxaan ku rakan lama heli karo midida ayaa ku sarsaraysa haddana si uu kalar qurxan kugu soo baxo midida ku sarsar makiinad iyo waxa u baahanta lama arko wax walba gacantaada ku qabsan kartaa alxamdulillah saas ayuu kaas igu soo baxay haddana waxaan hormariyay bunnigii cadaanka ayaan ku xijinayaa guduudka ayaan ku xijinayaa haddana saas ayuu ku soo dhamaada marka insha allah waa kana markaan soo dubay saas ku soo baxay kii oo si saarsaarayay kii kale oo korka aan wax ka saaray isagana waa kana kowdii ahaa oon jeexay kii kale oo ku soo wareejinayay guduudka waa kaasaa kii kale oo bunniga ku soo wareejina waa kana maasha allah hoosta iyo korka waa qurux jileeca iyo suug u noqday ee bushna waaba la yaabay wallahi afku ku dhex milmaayay maasha allah kan quruxdiisa kaas qurux uu xijabiyay marka maasha allah tabaarakallah san ayuu noogu soo baxay walaalayaal waxaan kaga tagayaa salaamka islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh like iyo share iyo commentiga iyo waxyaabaad noo soo qoraysaa jasaakumullahu khayr ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh